Gumeysiga Galbeedka Afrika soo muuqashadii Yurubiyaanka xeebta badda Atlantika ee waqooyiga Afrika qarnigii 15aad ayay ku aasaysan tahay bilowga dhammaadka xorriyadda Galbeedka Afrika, taasoo taariikhda gobolka saameyn aad u weyn ku yeelan doonta ilaa maanta aan joogno. qarnigii 13aad xasiloonadii dhaqaale ee qaar badan oo ka mid ah quwadihii ugu waaweynaa reer Yurub waxay ku tiirsanayeen dahabka laga keeni jiray Galbeedka Afrika. dahabkii sheeka xiriireed xiisangelin badnayd iyo hanti aan xadid lahayn ayaa ku faaftay saxaraha iyo Mediterranean-ka. boqortooyadii reer Yurubna waxay noqdeen kuwo la dhaca ama dareenkooda u soo duwa Galbeedka Afrika, waxaana isla waqtiga markii boqortooyinkii Galbeedka Afrika ay firqooyin yaryar noqdeen sidaana ay ku leecday awoodoodii. Yurubna waxay bilowdeen in dareenkooda u soo jeediso fiirar gaaran ay u yeelato gobolka. boqortooyada Henry oo ahaa badmaaxa reer Boortaqiil ayaa ahaa qofkii ugu horreeyay dhiirigelinay saamiyaasha dalkiisa ee xeebta Galbeedka Afrika ay sahmiyaan, taasoo in yar kadib noqotay meel loo yaqaan Guinea. sanadii 1434 markab laga leeyahay wadanka Boortaqiil ayaa isku wareejiyay goobta aan la jeclaysan ee Cabo Bujudur, taasoo maanta ku taala wadanka Morocco, waana markabkii ugu horreeyay sidaas sameeyay xilligii Phoenician-ka sanadii 613 BC-ga. sanadii 1443 maraakiibtii Boortaqiiska waxay gaareen afaafka hore ee webiga Senegal, safaridii dambena waxay gaareen Sierra Leone. sanadii 1462 Fernand-Dibu oo hadda loo yaqaano Biako kana tirsan wadanka Equatorial Guinea, halkaa Boortaqiisku ugu horreeyay deegaan ka dhigtaan Galbeedka Afrika markii ay tageen sanadii 1462 wadanka Cabo Verde. Boortaqiisku waxay xiriir la yeesheen odayaasha dhaqameedyada gobolka waxayna bilaabeen ka ganacsiga dahabka iyo faanta maroodiga, waxaana isbedelay dagaalkii Galbeedka Afrika iyagoo u jeestay dhanka ganacsiga iyo saxaraha ilaa iyo xeebta sanadii 1482. waxay Boortaqiisku kalcad ganacsi ka dhisteen Almenia hadda ah xeebta Ghana, isla waqtigaasna ergooyin ganacsi oo reer Boortaqiil ayaa waxay xiriir la yeesheen boqortooyadii Benin oo hadda Nigeria, waxayna ahayd maamul xaalad ahaan degan kana horumarsan dhanka farsamaqaanadeeduna ay qabiil ku ahaayeen maarta iyo isku darada macdinada kala duwan. xiriirka kalgacal ku dhisnaa iyo natiijo ganacsi oo aad u weyn ayaa dhexmartay boqortooyadii Benin iyo boqortooyadii Boortaqiiska. sanadii 1483 saamiyaashii reer Boortaqiil ee Diago ayaa wuxuu gaaray koonfurta Shishi oo ka fog xeebaha ilaa ay webiga Congo oo aan xilliga reer Yurub gaarin, sidaasna wuxuu Diago ku sahmiyay ku helay boqortooyadii Congo horaantii qarnigii 16aad, iyadoo boqortooyadii Biloowgii ay weli ka talinayso inta ugu badan gudaha Galbeedka Afrika. maraakiib Faransiis iyo Hollandees iyo Ingiriis ayaa ku soo biiray Boortaqiiska iyagoo booqasho joogta xeebaha Galbeedka Afrika ku imaan jiray, iyagoo markay yimaadaan xarumo deegaan ka dhigisan jiray halka. dhanka joogitaanka reer Yurub wuxuu ku xadidnaa kaliya xeebaha Galbeedka Afrika, si dhaqsi leh ayay ugu gudbeen goobaha xeebaha ka fog dahabka iyo goobaha dahabka laga qodo ee indhaha reer Yurub soo jiitay. waxaa xilliga gacanta ku hayn jiray dadkii Afrikaanka ahaa oo goobaha ay booqdaan deegaan ku ahaa xilliga, waxaana gudaha u galay gumeystihii oo quwad dhanka ciidanka ahna u isticmaalaya maskax. sanadii 1778 ayaa koox Ingiriis oo hogaamin jiray Sir Joseph Banks ayaa soo jiitay dadweynaha Galbeedka Afrika, waxayna aas-aaseen urur Afrikaan ah oo horumarinta sahminta Afrika, waxaana isla nidaamkaas raacay Faransiiska. inkastoo su'aalaha ganacsiga iyo heybadda qaran iyo door muhiim ah ay ku lahaayeen raggii Augusto de Africa, ururkii Afrikii saaxiibadooda reer Faransa, waxaana ku jira damac ah in xilligaa su'aalo badan ay jireen, waxaana juqraafiga la leeyahay su'aalaad badan oo ku saabsan Gumeysiga qaaradda Afrika, maadaama waxyaabo badan la qariyay Afrikana dadkeeduna ahayn kuwa ilbax ah. sanadkii 1796 in ka badan 300 sano kadib
xilligay reer Yurub bilaabeen xog ururinta xeebta galbeedka Afrika, Mungu Bak wuxuu go'aamiyey ugu dambeyntii in webiga Nigeria bariga lagu daro iyadoo ilaa iyo 1828 ninkii Faransa u dhashay Reine Ili oo noqday Yurubiyankii ugu horreeyay gaara Timbuktu si nabadana dib ugu soo laabta. dadka galbeedka Afrika waxay ahaayeen kuwa aan si naba uga dhiidhin ka horjoogitaanka reer Yurub iyo kacdoonadii lagu diidanaa waxay ahaayeen kuwa shar adag ku noqday Yurub inkastoo uusan dhaqan gelin in difaac adag ay sameystaan bilowgii Gumeysiga. hogaamiyaashii kacdoonkii ugu adkaa wuxuu ahaa Cumar Taal kaasoo xilli ku dhow 1850kii hogaaminayay ololaha gudaha Senegal loogaga soo horjeeday Faransiiska. dhimashadii Cumar Taal kadib mujaahidiintii xuriyad oo dagaalanka ah ee loo yaqiinay Marabut Waris kuwaasoo Senegal ka dagaalamayeen way sii jireen. quwadihii reer Yurubna waxay ku soo koobmatay deegaanada xeebta ay ka mid ahaayeen gobolka Degarta iyo degadii Ingiriiska ahayd Freetown oo ku tiilay Sierra Leone iyo Lagos oo Nigeria ahayd. Boortaqiiska xilligaas awood ahaan aad u badan lahayn waxa uu ku nagaaday deegaan ahaan sida Bissau oo ah caasimadda maanta ee Guinea-Bissau. rabitaankii iyo isbalaarintii reer Yurub iyo deegaanada galbeedka Afrika ma sii joogsanayo halkii ayuu ka soo socday iyagoo awood military u adeegsanayay heshiisyo yaryar oo lala galo odayaal dhaqameedyada qowmiyadaha deegaanka xilligaa ku noolaa. laakiin go'aanka gaaridda nolosha dabiiciga caadiga ee galbeedka Afrika waxaa si hoos u go'aamin jiray quwadaha aan la hadli karin ee reer Yurub xilliga awoodda ciidan ku joogay qaaradda Afrika. inta ugu badan Gumeysiga reer Yurub waxaa riishada u qabtay sanadii 1879kii boqorka dalka Belgium Leopold kadib sheegashadii Congo. taasna waxaa xigtay qoondeyntii waalida ahayd ee Afrika qayb loogu qaybiyay quwadihii reer Yurub. dadka Afrikaanka ahna wax hadal kumaysan lahayn arintaas. Togo iyo qaybo kamid ah Cameroon waxaa xukunkooda lagu wareejiyay dalka Jarmalka. Boortaqiiskana Guinea-Bissau, Cape Verde, Sao Tome iyo Principe. Ingiriiskana wuxuu calaameysay Gambia, Sierra Leone, the Gold Coast oo ah Ghana iyo Nigeria. inta ayaana ku soo gabagabeynaa qaabkii uu ku bilaabmay Gumeysiga qaaradda Afrika. waxaan iskugu imaan doonaa barnaamijyo kale. anigoo Maxamuud Shaqomar Milana ayaan idiin soo jeedinayay saaxiibayaal. tan isma qaldamane isma dhaafna Soomaaliyeed.